shaqooyinka ugu mushaarka badan adduunka waa kuwan qaar ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka fiican ama shaqooyinka ugu mushaarka badan adduunka. dhakhtarka neerfaha mushaarka ama lacagta laga faa'iido dhakhtarkan qiyaas ahaan waa 3 milyan iyo badh. dadka badankoodu shaqadan waxay u arkaan mid caadis ka ah oo isla markaana micno aad badan aan lahayn. ka shaqeynta dhibaatooyinka maskaxda bini'aadanka ma fududa. haddii aad tahay qof shaqadan si wacan u yaqaana sanadkii waxaad heli kartaa ku dhawaad lacag 3 milyan gaaraysa. laakiin ogow haddaad hal daqiiqo oo qalad aad gasho waxaa laga yaabaa inaad qof disho. lambar 2 dhakhtarka suuxitaanka. dhakhtarka suuxitaanku waa qof sameeya habka suuxitaanka ka hor qalliinka ama xitaa inta lagu jiro qalliinka. shaqada marka doonaysid inaad gasho ama inaad doonatid wax koobaad ee lagaga baahan yahay waa shahaadada jaamacadda. qaar ayaa laga yaabaa inay ku weydiiyaan PhD ama MD. waxaa laga yaabaa shaqada marka doonaysid in lagu weydiiyo ma leedahay 5 sano oo way aragnimo ah iyo xirfado ballaaran oo goobtan ah. lambar 3 soo saaraha software-ka ama soo saarayaasha software-ada. soo saarayaasha software-ka ayaa dadka mas'uul ah nashqadeynta kombiyuutarka. intay saacadii qaataanna waxaa lagu qiyaasaa 45,000. shaqada waxay kobcday sanadihii ugu dambeeyay 12%. tanna waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka fiican adduunka. lambar 4 madaxda sare. dadka mas'uulka ah iyo kuwa go'aanka bixiya ama kuwa siyaasadaha shirkadda waa kuwa isku xidho qorshayaasha sidoo kalena kala haga hawlaha ugu sareeya ee mas'uulka. laakiin waxaad u baahantahay inay kuwa ka hooseeya kugu caawiyaan hawshaada si aad u gaadho guulahaaga iyo higsigaaga aad doonaysid. lambar 5 dhakhaatiirta maqaarka. haddii aad qabto xanuun dhinaca maqaarka ah waa inaad raadsato dhakhtarka maqaarka. maqaarkuna aad ayuu muhiim u yahay. hal khalad oo aad gashanaa wuxuu gebi ahaanba dhaawici karaa maqaarka oo dhan. sidaas darteed waa inaad shaqadaada u gudataa si taxaddar leh. haddii ay noqdo qaar ku guulaysta shaqadaasna waxay noqon doonaan qaar qaata celcelis ahaan 2 milyan. tan waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka fiican. lambar 6 falaqayaasha maaliyadda. haddii aad tahay qof ku fiican xisaabta waxaad dooran kartaa xirfadan. waxaana dadkuna maalgashi ku samaysan doonaan fikradahaaga isla markaana waxaad la macmiilaysaa kaydka dadka. celcelis ahaanna waxaad helaysaa 37,000. lambar 7 turjumayaasha. middan waxay noqon kartaa mid aad lagu qanco sababtoo ah dadka waxaad ka caawin kartaa inay fahmaan luqado kale kadibna waxaad ku helaysaa lacag fiican. celcelis ahaanna shaqadan waxaad ka helaysaa 22,000. si aad u hesho shaqadanna waa inaad taqaanaa luqado badan oo ajaanib ah welina si safeex ah waa inaad u taqaanaa qoraalkeeda iyo akhriskeeda. waxaad markaa heli doontaa faa'iido badan. lambar 8 maalgashiga bangiyada. haddii aad marka hore maleelisay inay dhakhaatiirtu sameeyaan lacagta oo dhan waa inaad si qoto dheer u barataa xirfadan. waana shaqaadu dhib badan laakiin waxay leedahay faa'iido fiican. hal go'aan oo khaldan ayaa kugu sababi doona khasaare lacageed oo aad u badan. markaa shaqadu si ay u leedahay khatar badan ay faa'iido badanna u leedahay. ha eegin faa'iidada qudhata khasaarahana eeg. lambar 9 dhegista quraanka. shaqadan waa shaqo fiican waxaanad ka helaysaa lacag badan sidoo kalena ajarna waad ka helaysaa. si aad shaqadan u heshana waa inaad taqaanaa sidoo ku tusay quraanka. shaqadanna 10 sano ugu dambeeyay ay aad u soo badatay. lambar 10 duuliyaha diyaaradda. haddii ay tahay qof jecel safarka tan waa mid ka caawinaysa safarka sidoo kale waa shaqo aad u fiican. sidoo kale waxay ka caawinaysaa inaad meel kasta aad ku wareegto sidoo kale lacag aad u fiicanna waad ka heli doontaa. shaqadan waxaa loo arkaa mid soo jiidasho leh labiskeeda iyo wixeeda kaleba. sidoo kale waxaad ku safri doontaa adduunka oo dhan intaad noqon hal gob. shaqadanna aad ayay u dhib badan tahay sababtoo ah adaa ka mas'uul ah rakaabka saaran diyaaradda. sidaas darteed waa inaad u shaqaysato si taxaddar leh. lambar 11 dhakhtarka dhalmada. alla ka sakow iyaga ayaa ah kuwa ka caawiya inuu ilmuhu arko iftiinka dunida. waana xirfad aad u qaali u ah sababtoo ah waxaad keenaysaa nolol cusub daqiiqad kastaba. sidoo kale waxaad ka caawinaysaa lamaanayaal badan in arkaan wejiga ilmahooda. si kastaba haatee waxaad helaysaa lacag aad u fiican ku dhawaadna waxaa lagu qiyaasaa 2 milyan. lambar 12 injineerka ama makaanika. shaqadan waxaad ka helaysaa sanadkii ku dhawaad 100,000. markaana waxaad helaysaa guri aad u qaali ah isla markaana aad ku raaxaysan karto. gurigaas oo ah gurigaad ka rajaynaysay nolosha. lambar 13 dhakhtarka wadnaha. isagu wuxuu daryeeli doonaa wadnahaaga iyo haddii wax khaldamaanba waxay halkaas u joogaanaa inay daryeelaan wadnahaaga. sidoo kale waxay hubin doonaan caafimaad qabka wadnahaaga. tanna waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka fiican adduunka. lambar 14 kalkaaliyaasha ama neerasta. shaqadan kalkaaliyuhu waa shaqo cajiib ah oo isla markaana si fudud loo heli karo sababtoo ah waxaad u adeegaysaa bukaanka waxaan markaana la aadaysaa guriga lacag fiican. dadka la'aantoodna bukaanada hore ma caafimaad lahayn iyaga ayaa ahna qofka ku xiga dhakhtarka oo dhakhtarku ma ku mashquulo kalkaaliyaha ayaa ku daryeeli doona. lambar 15 dhakhaatiirta maskaxda. iyagu way noocyo badan yihiin laakiin kan aanu sheegano waa kan dadka dhageysta kadibna la taliya. wuxuu celcelisaan qaataa $85 haddaanan khaldanayn. daawad intaas ay maanta nugigii barnaamijkeeni intaas oo qurana maaha
shaqooyinka ugu mushaarka fiican adduunka waxaana jira qaar kale oo badan oo ay ka mid yihiin dhakhtarka ciyaaraha injineerka hawada sare garsoorayaasha iyo maamulayaasha dhismaha daawaday halkaas ay maanta ku soo koobaynaa barnaamijkeena sidoo kale waxaad ka faa'iideynaa barta hoose komitiga nagula wadaag inta ku kulmayna barnaamij la mid ah waxaan naga tegaynaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamse Jooqane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iidi doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh